Midowga Yurub ayaa go'aansaday in uu joojiyo cunaqabataynta suurtagalka ahayd ee Turkiga sababo la xiriira in horumar wanaagsan laga gaaray shirarkii wasiirada arrimaha dibadda ee ururka ee Isniintii tagay dhacay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas oo ka hadlay kulanka kadib xilli uu ku sugnaa dalka Turkiga ayaa yiri: "Ma aanan go'aansan in aan cunaqabatayn saarno xukuumadda Ankara maxaa yeelay waxaan aragnay in ay jiraan horumar wanaagsan oo laga gaaray xiisadda gobolka." Saraakiisha Turkiga ayaa sidoo kale sheegay in ay rajeynayaan in horumar laga gaaro madmadowga ururka sanadkan 2021, ayna rajeynayaan in ururka uu qaado tallaabooyin dhab ah oo wax ku ool ah. Dhinaca kale, Turkiga iyo Giriiga ayaa Isniintii bilaabay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyay ee qaab wadahadal sahmin ah ku dhawaad 5 sano si wax looga qabto khilaafkooda la xiriira xuquuqda madax-bannaanida ee bariga Mediterranean-ka. Turkiga iyo Giriiga ayaa isku khilaafay arrimo dhowr ah. Turkiga oo leh xeebta ugu dheer qaaradda ee Bariga Dhexe ayaa diiday sheegashooyinka xadka badda ee ay soo jeediyeen maamulka Giriiga, isagoona ku nuuxnuuxsaday in sheegashooyinkaasi xad-dhaafka ahi ay ku xadgudbayaan xuquuqda madax-bannaanida labada dal ee Turkiga iyo Jamhuuriyadda Waqooyiga Qubrus. Hogaamiyaasha Turkiga ayaa si isdaba joog ah carabka ugu adkeeyay in xukuumadda Ankara ay taageersan tahay in dhibaatooyinka ka jira gobolka lagu xalliyo sharciga caalamiga ah, xiriirka daris wanaagga iyo wadahadallo wax ku ool ah. Balse xukuumadda Athens ayaa dhowr jeer diiday inay fariisato miiska wadahadalka, waxa ayna doorbiday in Midowga Yurub ay go'aan ka gaaraan muranka labada dal.